بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وناكسن داوديال ملبو جوجتين يسول بدنو مغليسين كسو دوادا برامج كينا قصة وحليادنا كلا دينو قبرتين إننا هودين كغسو باهنو برامج كينا قصة وان كسو قادنا دعدوين حقيقة وكسو أبسن كوه رو دعي كوه هدى تاغن يكوه سورتقل أي تاينا 10 كقادنو وإنو سو فولي waxaan ku soo qaadanaynaa maanta qisadeena aan halkaan u kula wadaagayo oo aad kala socotaan YouTube-keena Qissa Wana TV ciwaankeedu waxa uu noqonayaa gabadhii qof walba uu ka quustay laakiin aan isdhiibin hamiin qabow badan oo jiray aadna gudcur ahayd ayaa gabar yar oo lagu magacaabo Najma ayaa kaligeed fadhiisatay geed ku yaalay gurigeeda ama qol ay deganeed oo yar hortiisa mugdi ayuu ahaa xilligaas guud ahaan dhulku indhaheeda ilmo ayaa ka soo daadanaysay waxaana ay ku qarinaysay inay halkaa fadhiisato xanuunka badan oo ay dareemaysay gacanteeda waxay ku haysatay warqad yar oo ay ku qorneed waad ku dhacday imtixaanka aad ayayna arrintaasi u xanuujinaysay najmo ayaa si tartiib ah warqadii u duuduubtay ay gacanta ku heday qalbigeeda waxaa ka dhex kuuxayay hal jumlad oo ah maalin walba taas oo ay maqlaysay waxba ma noqonaysid ayay ku oran jireen dadka ay la nooleed hooyadeed way xanuunsaneed aabbaheedna shaqo ma lahayn dadka xaafadda qaarkood waxay ku qosli jireen marka ay arkaan riyadeeda oo aad u weyneed riyadeedu waxay ahayd inay macallimiinta qaar xitaa way ka quusteen inay arrintaasi gabadha ay si weyn u dejiyaan oo xaaladeeda ay dejiyaan laakiin iyadu waxay ahayd qof aad u riyo fiican riyadeedana waxaad ku ogaan doontaa sheekada gudaheeda laakiin qofna ma ogeyn in gabadha yar ay maalin uun ay noqon doonto qof ay dadka dhan ay la yaabaan oo ay arkaan sida ay u dhaqaaqday iyo horumarka ballaaran oo samaysay caawa waxaa maqli doontaan qiso murugo leh qiso qalbi jab iyo sidoo kale rajo sabir iyo guulo aan la filayn kadib la helay qiso qof walba ay ka reebi doonta cashar weyn oo ay muddo islahayd ma la heli karo inaad sidaasoo kale u aragto dhammaadka qisadan waxaa laga yaabaa inaad si aada u eegto dadka laga quusto haddaba si fiican u dhagayso sababtoo ah mararka qaar dadka guusha weyn gaara waa kuwii dadku oo dhan ay oran jireen waxba ma tihid mana gaaraysid meelna najma waxa ay ku dhalatay meel aad uga fog magaalada oo ay deganaayeen qoyskeeda oo sabool ahaa waxa ay had iyo jeer leh ay doonaysay inay noqoto qof macquul ah markii ay maskaxdeedu garaasatay waxa ay deganaayeen guri yar oo aad duug u ahaa oo ku yaalay meel magaalada ka baxsan roobka marka uu da'ayo saqafka biyaha ayuu soo dayn jiray waxaana u saareed teendhooyin iyo sidoo kale raaro la isu geeyey mararka qaar waxay seexan jirtay iyada oo gaajaysan laakiin inkastoo oo aysan dhib badan ay ku jireen haddana najmo hal riyo oo weyn ayay lahayd waxa ay rabtay inay wax barato oo ay mustaqbalkeeda maarayso waxa ay rabtay inay maalin u noqoto qof weyn oo caawisa qoyskeeda subax kasta iyada oo daalan ayay iskuulka aadi jirtay dharkeeda ma ahayn mid fiican kabaha mararka qaar way ka go'i jireen ama way ka jeexmi jireen ardayda qaar way ku qosli jireen markay iskuulka tagto gabdho kale waxay oran jireen bal fiiri dharkeeda gabadhan qaar kalena waxay lahaayeen gabadhan weligeed meel ma gaarayso najma markaas madaxa ayay hoos u dhigi jirtay laakiin qalbigeeda gudaheeda aad ayuu u holcayay waxay ahayd
daal weyn oo laga dareemi karay. habeen kasta iyada oo nal yar wax ku akhrinaysa ayay seexan jirtay. hooyadeed ayaa mar walba ku oran jirtay, hooyo, dadka ha dhegaysan ee waad gaari doontaa guusha ee hore u tilaabso. laakiin maalintii ugu xanuunka badneed waxay ahayd maalintii imtixaanka. najma aad ayay ugu dhacday imtixaankii. macallinkeedii ayaa hortooda ku yidhi ardayda, najmo waxay u baahan tahay inaad wax kale samayso, waxbarashada kuguma fiicna, ayuu ku yidhi ardayda horteeda, waxaana ay ka qaadan niyo jab weyn. qolka oo dhan waa aamusay. najmo indhaheeda ilmo ayaa ka soo baxay, laakiin ma aysan hadlin oo wax jawaaba uma celin macallinka iyo ardadiisa. maalintaas kadib dad badan ayaa ka quustay. saaxiibadeed qaar way ka tageen. dadkii xaafadda waxa ay bilaabeen inay ku qoslaan. xitaa ehelkeeda qaar waxa ay ku yidhaahdeen, gabadhani waqti ayay iska luminaysaa. laakiin habeenkaas najmo go'aan ayay gaartay. waxay istaagtay inay aad u akhriso casharadeeda, waxayna istaagtay muraayad yar oo horteeda taallay. waxay isku tiri, haddii dadka oo dhan ay iga quustaan, aniga naftayda kama quusanayo. taasna waxay ahayd bilowgii isbeddelka nolosheeda. maalmo badan kadib najmo hurdo yar ayay seexan jirtay. waxa ayna ahayd qof shaqooyinka yaryar qaban jirtay iyada oo aad u akhrinayso buwaagteeda. waxay soo iibsan jirtay hadba waxay u baahan jirtay oo la xiriira sidii waxbarashadeedu u horumar lahayd. subaxa iskuul, galab shaqo iyo sidoo kale habeenkii waxbarasho. mararka qaar daal darteed ayay ooyi jirtay, laakiin ma aysan joojin. maalin maalmaha ka mid ah iskuulka waxaa yimid in la gelayay tartankaas oo ahaa mid aad u weynaa. ardayda ay ugu fiican ayaana la dooranayay. qofna magaca najmo ma filayn in halkaasi looga dhawaaqi doono. xitaa macallimiintu way iska indhatirayeen inay najmo ay bannaanka keenaan. laakiin markii imtixaanka la saxay ayaa la ogaaday natiijada. waxa dhacay cidna ma aysan filayn. najma ayaa noqotay ardayga ugu sarreeyey. qolka oo dhan waa aamusay. iskuulkiina waa la yaabay. dadkii ku qosli jiray way yaabeen. macallimiintiina aad bay aamus uga soo haray. waxay eegayeen najma markaas ayay fahamtay guusha ugu macaan. waa markii dadka ay kaa quustaan inaadan adigu marnaba ka quusan noloshaada. laakiin dhibaatada halkaasi kuma aysan dhammaan. aabbaheed ayaa xanuunsaday. qoyska xaalad adag ayuuna ku jiray. najmo waxaa lagu yidhi, waxbarashada jooji si aad aabbaha u saacido. laakiin iyadu way diiday. waxay bilowday inay online wax ku barato. waxay habeenkii shaqada ay shaqayn jirtay, maalintiina waxbarashada dadka ayay baran jirtay. waxayna u arkayeen waali. laakiin najma waxa ay gaartay halkii ay tiigsanaysay. riyadeeda qof kale kuma aysan noolayn. waxayna ku nooleed tillaabooyin ay qorshaysatay oo ay doonayso inay ku wajahdo. sanado kadib najmo waxay heshay scholarship weyn. waxayna noqotay gabadha ay magaalada dhan ay si weyn looga hadalhayo oo si weyn uga dhex muuqata. dadkii markii hore ku qosli jiray ayaa hadda sawir la gelaya. hooyadeed maalintaas aad ayay u ilmaysay, iyada oo leh, waxaan ogaa in aad maalin uun guulaysan doonto. najmo maalinta ay qalin jabinteeda ka qayb galeen waxay istaagtay masraxa weyn. dad badan ayaa sacbinayay, laakiin qalbigeeda wuxuu ahaa mid si weyn ay uga muuqatay ereyadii xumaa ee ay ku oran jireen. waa hagaag waxay xasuusatay habeenkii ay keligeed ooyi jirtay. kadib waxa ay ku tiri jumlad dad badan qalbigooda taabatay, ha rumaysan
dadka kuu sheegaya inaadan waxba noqon karin, sababtoo ah mararka qaar dadka kaa quustay ma arkaan awoodda alle ku siiyey. qolka oo dhan sacabka ayaa isku dhacay. taas waxay muujinaysay in qofna uusan ogeyn waxaa qofta u qoran iyo tallaabooyinka ay berri qaadayso. adigu daawade maxaad ka baratay qisada najma? maxaa kaaga soo baxay? bal inala wadaag oo commentiga inugula wadaag. qisada markaan soo koobno waxyaabaha ugu waaweyn ee laga baran kara waxaa ka mid ahayd qisadan waxaan ka baranaynay dadka kaa quustay macnaheedu ma ahan inaad fashilantay. guusha waxay u baahan tahay sabir. qofka aan isdhiibin maalin uun ayuu guulaysan doonaa ama oo guulaystaa. dadka maanta kugu qoslaya berrita way ku sacbin karaan. haddii qisadan qalbigaaga ay taabatay, ila wadaaga xogta iyo waxa aad ka heshay. dhanka kale ku taageer ama la wadaag qofta maantay aad doonayso inaysan niyad jebin, niyad jabna uusan ku dhicin xaalad ay ku jirto awgeed, si ay uga faa'iidaysta casharkan. dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inagala socda, intaas ayaan ku saafmeeraynaa qisadan. fadlan hore inoo dhaqaajiya oo page-ka inoo siiya subscribe, like, meel wanaagsanna inoo geeya oo inagu dhiirigeliya shaqada aan hayno si aan ugu dhiirano sii dhaqaajinta qisooyinka. inala wadaaga qisooyinka aad u jeclaa lahaydeen inaan ka soo hadalno oon halkaan idinkula wadaago. waxaan idiin ballan qaadayaa qiso walbood ila soo wadaagtaan oo macno u samaynaysa dhegaystayaashayda inaan halkaan idinkugu soo baahiyo. fadlan subscribe, like iyo share noo siiya. qiso waana TV. waadna mahadsantihiin daawadayaal.